gudida gurmadka abaaraha oo labadii caana maalay ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta ku wareey barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo qaybtii ku soo hagaagtay gobolka Togdheer hadaba wareejita caawimadii ku soo hagaagtay gobolka Togdheer ayaa ugu horeyntiiba waxa warbixin ka bixiyay warbaahintana uga waramay Sheekh Maxamed Aadan iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga أحمد حاج علي عدن وحنا هذا اللذودي كمدها سيدتان أباروه مركي بلابمين واحد عضي إن كنتي جددين أي حول كشيء عليسك أبوك بدن وح أي صارتي قلبيتك أودي بعتبرني مكان كتاجني يدو أن إلا بينا قبل هذا بريء وتجي كواد وأصحر مي ويجي هراء وحنا بلابمي وتجي لبعض وجهك اللباد waxa uu ka bilaabmayay in gudida taakulaynta abaaruhu ay degaan caasimada Burco ee gobolka Togdheer ay halkaana barnaamijkii bariga oo dhan ka habeeyaan gobolka Togdheer marka la isku diro Buuhoodle iyo Daadmareed marka la raaciyana 4000 ayaa ka soo gaaray Sool waxa gaaray 2400 عينبا iyo saraarna waxa gaaray 600 intaas waa intii hore ee wajigii koowaad wajiga labaad waxaan ugu tala galay oo aad maanta wada arkaysaan qayb kamida waxaan ugu tala galay 10000 oo qoys inaan qaybino raashinka kala duwan ee aynu bixin jirnayna la siiyo 10kaas waxaan ugu tala galay oo halkan imanka inoo jooga 6000 iyo 500 oo loo qaybinayo gobolada 3500 in ku dhowna gobolka Sanaag ayaa loo rari doonaa insha Allah ta'ala gudida barnaamijkeedu wuxuu yahay in dibta jirto wixii laga awdi karo laga awdo gobolka Togdheerna waxa uu ku leeyahay taariikh weyn gudidan waa gobolka qura ee soo saaciday taakulaynta abaaraha ka qayb galay cawskii iyo lacagtiba isugu daray gobolada kale ee Soomaaliya ee galbeedka ay dhibaatada taagneen waxana ku kalsoonahay insha Allah biidillah al-kariim inay waxa soo gacan nabadgeliyo oo dadkii lahaa oo loogu tala galo reer Soomaaliland gacantooda gasho iyaguna xilka la wareegaan meel walbana guddi baa ka dhisan hadda laga dhisay sida isku dhafka ah oo دولتنا علماء الدين شخصيات أقوى iyo ganacsato wale waxaan markaa rajaynaynaa waa la sheegay wixii ku laba noqon mayno laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa sida ay hadda halka nabadgelyada ugu joogaan inay gacanta galaan dadkii masaakiinta ahaa dadkii dhibaatadu saamaysay abaaruhu taabteen oo aad ugu rafteen sida ay u kala mudan yihiin baa loo qaybiyay waxa kale oo halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo oo ka mahad celiyay soo gaarsiinta caawimadani gudidan taakulaynta abaaruhu waa gudi tof leh runtii marra waaxid waa gudi taariikhdu xusid doonto waa gudi qaabka ay u dhisan yihiin iyo nidaamka ay wuxuu wadaan aanu aad iyo aad anigu runtii u jeclaystay habkay wuxuu qaybinayaan wali ma hayo wax dhib oo ka dhacday inta ay qaybinayeen wax la qaybiyo ama dad la siiyana raashinka bilaashka ee freega iyo lacagta iyo biyo waxa ugu rabshad badan wali ma hayo gobol cabanaya iyo cid le waxba saan looga badiyay iyo cid baa leh waxaas imika afarteeda gobol ee la qaybinayo ee bariga ah wax xataa aan ka maqlo dareeni ma jiro cadaalad bay ku qaybiyaan had iyo jeer iyagoo marka hore intaanay waxba qaybin research sameeya Sakariya Cabdiraxmaan Ibraahim shabakada wararka madaxa banaanee Hargeysa Price magaalada Burco.